nin baa jiray lahaa 4 wiil. Waxa uu doonayay in wiilashiisu ay wax bartaan oo aysan noqon kuwo si fudud oo degdeg ah wax u qiimeeya. Markaasuu mid walba baaritaan u diray si uu u aado una soo fiiriyo geed camburuud ah oo ku yaalay meel aad uga fog. Waa geedkan hortiina ka muuqda. Ani ahaanteeda geedkan weligay maan arkin, laakiin waxaan rajaynayaa inaad idinka taqaanaan luqadda qalaad waxaa loo yaqaanaa biir. Haddaad garanaysaan ama haddaad u haysiin macno Soomaali ah, nagu soo gudbiya qaybta faalooyinka. wiilkii ugu horreeyay wuxuu aaday xilli jiilaal ah, ka labaadna gu, ka saddexaadna xagaa, iyo wiilkii yaraanasna wuxuu aaday xilli deer ah. Markii ay wada tageen oo ay soo noqdeen, wuu isugu yeeray si ay ugu sharxaan wixii ay arkeen. Wiilkii ugu horreeyay wuxuu yidhi, geedku wuxuu ahaa foolxumo quraara oo qallooca. ka labaad wuxuu yidhi, maya, geedka waxaa lagu daboolay buurooyin magool ah oo yadidiilo miro ka buuxaan. wiilkii saddexaadna wuu diiday, wuxuuna yidhi, waxaan ku rarnaa ubaxyo caraf badan oo aad u macaan, aadna u qurux badan, waxayna ahayd wixii ugu quruxda badnaa ee aan abid arko. wiilkii ugu dambeeyeyna wuu khilaafay dhammaantood, isna wuxuu sheegay in geedku uu dhugcay oo miro badan daadiyey, nolol badan iyo dhammaystirnaanna ka buuxdo. odaygii ayaa dabadeed wiilashii u sharxay in ay wada saxan yihiin, maxaa yeelay mid walba geedka wuu arkay, laakiin keliya hal xilli oo nolosha geedka ah ayuu arkay. wuxuu u sheegay in geedka iyo qofna toona aysan hal xilli wax ku qiimeen, iyo in nuxurka cidda ay yihiin raaxada, farxadda, jacaylka arrimaha ka yimaada lagu cabiri karo oo keliya dhammaadka nolosha markii xilliyada adagi imaado. haddaad quusato marka ay tahay jiilaal, waxaad tebi doontaa balaqaadka guga, quruxda xagaaga iyo dhammaystirta deerta. ha u ogolaan in xanuunka hal xilli uu u burburiyo farxadda inta kale oo dhan. noloshaa ku qiiman hal xilli oo adag. ku adkayso jahawareerka adag. waqti fiican waa hubati inuu imaan doono goor dambe. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.